Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xirada tababarka General Gordon ku booqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diyaarinayo inay weerar ay ku qaadaan qaybaha ay dalka ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ciidamada ugu tagay inuu ku dhiirigeliyo howlaha ay qaranka ay ku hayaan ayaa kormeer ku tagay qaybaha uu yaalo hubka si uu ogaado in qalabka ciidanku uu dhameystiran yahay in kale. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu ballan qaaday ciidamada qalabka sida in xuquuqdooda ay si joogto ah u heli doonaan, dawladuna ay si gaar ah isaga xil saari doonto baahida qalabka iyo wax kasta ay u baahan yihiin. meesha aad tagaysiin in laydinku ogaado oo raashinkiina la idin joogteeyo oo biyihiina la idin joogteeyo oo qalabka iyo agabka aad u baahan tihiin la idin siiyo. waqtiin ciidamadeena sabiib jooga ama kuwa bariira jooga ama kuwa meel kale aan geynay dhaqankeena shaqo inuu isbedelayo waa ogtiin Soomaa hadda dhaqankeena shaqo inuu isbedelayo cadowgu inay dareemeen Sooma ogidina waxaan rabaa oo aan maanta idinkugu imid inaan idin sheego inaan ogahay shaqada aad ka shaqaynaysaan naftiina aad soo hurteen cadowga aad la dagaalamaysan waxaan idinkugu bishaareynayaa laakiin inay hadda joogto dawlad diyaar u ah xuquuqdiina inay joogtayso laakiin xuquuqda askari walba si loo joogteeyo sidii aan hore u iri haddana aan ku soo celinayo askari walba waa inuu diiwaan gashan yahay number leeyahay meeshii lagu og yahay uu ka shaqeeyo si loo kala duwo kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqayn. askari walba oo loo diraayo shaqo ama khatar loo diraayana waa in loo dhameystiraa agabkiisa si loogu dhammeystiro waan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay leeyihiin maamul hufan kala dambeeya oo ka madax bannaan musuqmaasuq hadii Ilaahay yiraahdo. haddii ay jirto niyad xumo waxaan rabaa inaad qalbigiina adkaysataan askarta walaalihiina oo idinka horeysay oo shaqada bilaabay dhinacii loo diray cadowgu way ka ceyriyeen dhinac kale la idin diri doonaa oo la idinku aadin doonaa idinka maalmaha soo socda barbarkay ka baxdaa waa maxay dhinaciina yaanay dabayl ka imaanin sababtoo shaqada ah haysaan hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin iyo walaalihiin iyo caruurtiina iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkeena iyo cadow ku soo duulay ciideena iyo diinteena ayaa ka difaacaysaan guushi ummadda Soomaaliyeed way dhowdahay haddii marka aad tagtaan haddii Ilaahay yiraahdo qof idinkeedin kamid ah xuquuq ka maqan tahay ama agabaad u baahan tihiin ay idinka dhiman yihiin waa kan taliyo odawaay aniga toos ay la soo xiriiro. Dawladda Soomaaliya oo ciidamada ku sameysay dib u habeyn ballaaran ayaa wado qorshe dadaal ah oo ay ku doonayso inay kula wareegto qaybaha ay dalka ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab. Ciise Cabdi Ciise, Puntland TV, Muqdisho.